isku soo noqod wacan oo wanaagsan daawadayaal haddii aynu ku bilaawno qodobka ugu horeeya xubno matalaya beesha Talamuuge oo ka dacwoonaya ismaamulka Jubbaland ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Gaarisa warbixin amuurtaasi ku saabsan waxay noola diyaaraa wariyaheena Haashim Maxamuud oo Baraar xubno matalaya beesha Talamuuge sida ay sheegayaan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Gaarisa ayaa ka caawinaya xukuumadda maamul goboleedka Soomaaliya ee Jubbaland xubnahani oo ahaa odayaal gadgaduud ah iyo cuqaal iyo waxgarad ayaa xukuumadda ku eedeeyay gacan bidixayn maamulkaasi uu ku hayo siiba wasaaradda shaqaalaysiinta oo dadka ka soo jeeda beeshaasi inta badan ka tagta arrintaasna in badan bay dhagahna ku soo noqotay nin uu cabaadahayo iyo dad cabaadahayo oo maartay shaqaal ay diiday shaqaal iga caydiyay sidana la yeelay kana la yeelay marka nimayo annaga ma garanaysay waxyeen laakiin arrintaa waxaan rabnaa maanta kadib inayna nagu soo noqonin maamulka Jubbaland gacantii midigna waanu u nahay gacantii midigna waanu ahayn annaga la'aantanadina maba socdeenba waad ogtihiin saas daraadeed waxaan codsanaynaa walaalayaal oo arrintaa baaritaan lagu sameeyo hadda dhacdadii ugu dambeysay hadda cabashadan hadda waxaan kiciyo waxa la yidhi hadduu duulo wixii kiciyay buu qabaa cabashada hadda ugu dambeysay waxaa naloo sheegay naloo soo cabtay 9 nin oo dhalinyaro oo wada mataqaana education oo mataqaana qualificationkoodu sax yahay inay walbaan shaqo ay soo dhajiyeen ay u galeen imtixaankii ay ku guuleysteen iyagii bannaanka loo tuuray qabayliis macnaha tribalism ahaan dad kale la siiyey marka hadday taasi jirto waa arrin la yaab leh wax laga argagaxa marka waan la yaabnay ninka Talamuuge Kismaayo jooga shaqada loo diidahayo yaa la siinayaa ogaadeen ama Soomaali kala anigana maxaan ahay reer Jubbaland Kismaayo haddaan ka imaaday cidayda degan Jubbaland maxaan ka sheeganaynaa mucaarad kuma nihiin maxaan ka sheeganaynaa wax maalinka Jubbaland ay Kismaayo qabatay yamaan naga harila anagana aan ka cabanayno wali aan nala magacsanin ood moodo maxay qaadayaan inay leeyahay war anaga Jubbaland maxaan ahay lugaheeda hore ay ku boodayeen xoolaha bini'aadamka baabuurta wax markuu dhaqaaqayo lugu huru ka dhaqaaqa annaga maxaan qabnaa lugu hore oo Jubbaland inaan nahay ay ku dhaqaaqayeen walina malihin Jubbaland mucaarad baan ku noqsaasan ku noqonay iyo kan midna malihin Jubbaland maxay ka tashatay magaca Talamuuge ma jiro inay dhaxdo maalin kastaaba ilaa maalinka wasiir la bixinay ilaa maalinka maareen la bixinay ilaa maalinka shaqo la bixinay weyn oo dhan ilaa shalay u dambeysay oo raggii imtixaanka galay la faquuqay Jubbaland maxaan ka sheegaynaa faquuq waa magaca Talamuuge Jubbaland bini'aadamka in baaba laga wataaba oo la xoodaansada oo la wata waxaan qabanay iyo Jubbaland si noo dhaqato waa si kala fog waxgaradkani ayaa xukuumadda mudane Axmed Maxamed Islaam uu ka taliyo ugu dhawaaqay inay aqoonsato beesha Talamuuge oo saameyn iyo miisaanba ku leh deegaanka iyo welibana in maamulka wax laga siiyo sida ay hadalka u dhigeen meesha waxaan malaynaa hadduusan Talamuuge ahayn Jubbaland maanta lama dhahayn magaca ay ku taagan tahay waa Talamuuge in dadkeedina lacgaan bidxiyo waa arrin aad u xun ama aad u qaabdaran siiba ninka madaxweynaha waxaa la rabaa inuu arrimahaas oo kale aad iskaga fiiriyo maxaa yeelay waxay hoos imaanaysaa madaxweynaha maamulkiisa ayay hoos imaanaysaa ninkii shaqada munaasab u ah iyo ninka munaasab u ahaynba si cadaaladna in wax lagu qaybsado ayaa munaasab ah in maalin walbana laga qaayliyo oo laga cawdo oo la dhaho madaxweynaha ama ninka shaqaalaha u weynaa ayaa saa sameeyay arrin munaasab ma aha arrintaas ayaan ka daba jeednaa waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha arrinta inuu dib u fiiriyo tani ayaa timid dhalinta beesha si ka tirsan markay ka qayb qaateen shaqo la soo dhajiyay una tartameen waxa ayna sheegeen duqeydu in ay gabi ahaanba dhalintaasi wax ka waayeen shaqooyinkii la soo dhajiyay marka anoo ku hadlaya beesha Talamuuge waxaan ka codsanaynaa dawladda meesha ka dhisan inay xaq uu nooga maqan yahay ay dawladda noo soo celiso waxaa jirta kama hadli karno hadda oo ma ka warrami karno wixii oo mataqaana xaq darro aan soo marnay ama ninka hadda madaxweynaha isla marnay hadda kama sheekayn karno marka hadda waxaa noogu daran wiilashaas
sagaalka ah oo imtixaamka intay galeen imtixaamka 9 nin islama wada dhici karto 2 iyo 3 iyo 4 un baa la arkaa inay ka baasto marka laakiin 9 nin oo sagaalka wada dhaceen lama hayo annaga idaari baan nahay oo madrasayaan soo akhrisanay oo waan ka saynaa nidaamka soo ku socdo marka waxaan rabnaa in arrintaas laga waantoobo waliba ninkan shaqaalaha jooga meesha oo dadka qoro ay la yiraahdo siyaal careys annaga wuxuu naga galay zulmi haddaan nahay talbeesha talamuga marka waxaan rabnaa arrintaas inuu ka waantoobo dawladana ay ogaato arrintaas ay baarto annaga waxaan nahay Jubbaland dadkii soo aas-aase oo soo dhisay oo meesha dejiyay baan ka mid nahay marka waxa weeye waxaan ka codsanaynaa annaga haddaan nahay beesha talamuga markii la dhaafo talamuga la dhameeyo wixii shaqaalo la qoray talamuga uu wada qaato wixii kale inuu furuuciyo oo annaga asal aano laakiin hadda annaga furuucna ma nihin asalna ma nihinba waxaan noo male marka dawladda waxaan ka codsanaynaa annaga inay naloo soo celiyo xaqeena oo naloo qoro haddii ay laakiin arrintaas saa ku socoto hadda dawladda ha ogaato inaan annaga kalsoonida iidaheeda aan u qabnay aan kala noqonayno ku tooka holaha waa jeer ee meesha inta u dhaxayso dawladdu ku yahay haddaan nahay beesha Talmuge horta waan salaamayaa dhammaan Kismaayo beesha ku nool ee maalin hore shirka qabatay horta waa idin salaamayaa salaan qaali aan hawada idin soo marinayaa waxaanan idin muujinayaa idin cadaynayaa in beesha dhibka aad adinka ka cabatayn iyo annaga oo halka joogno oo laakiin deegaanka uusan noo kala ahayn Soomaalida waxay ku maamahdaa in dhaw ay isku hurdaan kala ma hurdaan wax alla wixii idin dhibayo annagana wuna dhibaya wax walbana go'aankaad adinka ka qaadataa baan annagana ka qaadanayna idinkuna raacsanahay marka taasaad horta ogaanaysaan waxaan rabaa inaan u guda galo anigoo la hadlayo madaxda maamulka Jubbaland haddaan nahay beesha Talmuge ama xaka joogo ama halkan ha joogo deegaanku waa hal waana isku aragti baan nahay aad waxaan uga cabanaynaa Jubbaland inay caadaysteen madaxdeeda inay takooraan beesha Talmuge xaqa ay ku leedahay ay diidaan mana dhawo marka ay bilaabatay in badanna waanu ka hadalnay laakiin waxaad moodaa wixii wax ka sii darayo boogi wax ka soo reynaya inaysan jirin waxaa jirtaa bishii hadda u dambeysay shaqooyin badan oo la soo dhajiyay oo uu sabood maalgelinayo World Bank in ay shortlist ay ku soo baxeen 9 nin oo dhalinyaro Talmuge ku abtirsato waxa la yaab noqotay Talmuge oo deegaankii kamid ah ma aragtay beesha lagu xanto meesha inay u badan tahay kamid ah in kaligood 9kii qofba uu takooro uu lista ka bixiyo ninka u weyn qaybta shaqada iyo shaqaalaha xafiiska shaqada iyo shaqaalaha oo la yiraahdo siyaad careys haddii ma garanayo siyaad waxa uu saa u sameeyay ma aragtay gardarro garab ogaa ma wax asag kaligiis ma aragtay uu iska maagaa haddii arrintaas aysan gardarro garab og ahayn waxaan maamulka iyo madaxda sare ka codsanaynaa arrimahaas in la fiiriyo annagu ma nihin dad maamulka ka horjeedo waxaan nahay dad jecel maamul inuu dhismo si kastaba haatee tani ayaa asal u ah nidaamka ka jira guud ahaan dalkaasi Soomaaliya kaasi oo qaab qabiili ah wax lagu qaybsado sida loo yaqaano 4.5 oo ah qabiil kaseeto quwadiisa inuu wax ku qaadanayo Hashim Maxamuud Baraar warbaahinta kulmiye Gaarisa.